السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الداود يا الميل والبو أجوكسان يسوع والبو مقال كيوجدين سوغاري هالك دينا قد ونيسان وعبرتان يوتيوب ككل نهاية رنشيك صاحبي الغضو بدو جوا وين أورك يدين كجوها هنا وحى كمدا imaaraadka carabta oo mahad salaad ku amray inuu xabsiga u saxaabo sarkaalkii ka dambeeyay qabashada lacagta imaaraadka looga qabtay garoonka diyaaradaha aadan caade ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo rag hubeysan ku qabtay Muqdisho gudoomiye Jeyto oo ka hadlay dilalkii ka dhacay beledweyn farin hanjabaad ahna diray iyo jabhada TPLF oo shaacisay in ay laayeen ciidamo badan oo u dhashay Latariya qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadeen ugu xiran oo idin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad channelka subscribe inoo saadhaan like-na aan ugu dhiirigelisaan gamaleelka furataan soo warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal sida hordhac warkayga baad ku daawateen hadaynu ku bilowno imaaraadka carabta ayaa mahad salaad amar ku siiyay in uu xabsiga u saxaabo sarkaalkii ka dambeeyay qabashadii lacagta looga qabtay garoonka diyaaradaha aadan caade sanadii 2018 taasoo oo dhammayd 9.6 milyan iyadoo hadda uu roob lacagtaasi sii daayay ila wareedyo kala duwan ayaa ka soo baxaya xarga sarkaalkan dhalinyarada ah kaasi oo ahaa sarkaalkii ugu horeeyay ee lacagtaasi gacanta ku dhiga sarkaalkan ayaa mudnaa in la siiyo bilad sharaf maadaama uu dalkeena ka badbaadiyay hagardaama ay u maleegayeen imaaraadka carabta iyagoo lacag dhan 9.6 milyan rabay inay gudaha magaalada Muqdisho soo geliyaan si dhibaatooyin badan halkaasi looga geysto balse mahad salaad iyo kooxdiisa ayaa hadda waxay wadaan abeegsi ay ku beegsanayaan dhalinyaradii 5 sano la soo shaqeysay madaxweyne Farmaajo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxay ahayd meesha kaliya madaxweyne Farmaajo xogaha ka heli jiray iyadoo oo madaxweyne Farmaajo uu dhalinyaradaasi siiyay ahmiyad weyn una tilmaamay inay dalka xaq u leeyihiin inay ka qabtaan wax walba oo soo gelaya sidoo kalena hay u daataan wadamada kale sirahooda si ay u helaan xariga Jeylaani Maxamed ayaa sidoo kale nisoo qaabilsanaa alaabaha garoonka ka dhoofa ama ka soo daga in uu hubiyo waxaana hadda ay warar ku tilmaamayaan in imaaraadka carabta ay u haystaan inuu lacagtaasi qabtay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kooxda Xasan Sheekh Maxamuud waxay rabaan in ninkani dhalinyarada ay ciqaab u geystaan ama ay gacanta u geliyaan imaaraadka carabta lama oga hadda meesha oo saxda ah uu ku xiran yahay balse warar kala duwan ayaa ka soo baxaya xarigiisa waxaana la tilmaamayaa in gacanta loo gelinayo safiirka imaaraadka carabta si uu isagu go'aan uga gaaro waxay dadku isweydiinayaan in sarkaalkani dhalinyarada uu mudan yahay abaalmarin iyo in gacanta loo geliyo wadan shisheeye hadii madaxweyne Farmaajo shalay lagu haystay in uu qalbi dhagax u gacan geliyay Ethiopia maanta way ka duwan tahay oo Xasan Sheekh Maxamuud mahad salaad iyo kooxdaasba waxay doonayaan in imaaraadka carabta ay gacanta u geliyaan wiilkani dhalinyarada ah ee dalkeena ka badbaadiyay mashaqada dhibaatada badan u horseedi lahayd maadaama lacagtaasi oo cadadeedu ay dhameed 9.6 milyan hadii waqtigaasi lagu sii deyn lahaa gudaha magaalada Muqdisho saameynteedu ay ka muuqan lahayd dawladda madaxweyne Farmaajo Jeylaani waxa uu ahaa shakhsigii ka dambeeyay in la qabto sanadii 2018 lacagta imaaraadku waa uu cilcuneen ninkani dhalinyarada ah ee dalkiisa ka badbaadiyay dhibaatada waxayna mar walba ku hanweynaan in maalin ay gacanta ku dhigaan ama ay xilka ka qaadaan ama si kale ay uga cadgoostaan maanta waxa uu loogay cadawga mahad salaad iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo xilkiina ka qaaday sidoo kalena xabsiga u saxaabay lacagta oo dhammayd 9.6 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa gudaha magaalada Muqdisho la damcayn la soo geliyo balse sarkaalkan oo doonaya in uu baaro imaaraadka carabta alaabtooda halkaasi ka soo degaysa ayaa waxa uu boorsooyinkan ku baaray gudaha aylaboorka waxa uu arkay in lacagtani ay cadadeedu aad u fara badan tahay waxa uu markaasi la wadaagay taliyaasha ciidamada iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ee xilligaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo suura gelisay in gacanta lagu dhigay kadibna bangiga la dhigo balse imaaraadka carabta waxa uu dadaal badan ku bixiyay in lacagtiisa ay u soo noqoto kadibna oo cid walba oo ku lug lahayd uu ka cadgoosto madaxweyne Farmaajo dagaalkay la galeen waxa uu horseeday inuu xulkii ku waayo sidoo kale hadda waxa ay gacanta ku dhigayaan ninkaasi
kiiskaasi ayna u haystaan in ay ku ciqaabaan. haddii ay taasi dhacdo waxay noqonaysaa gunnimo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed oo idil. saaxiibayaal ila xogogaal ah ayaa inoo xaqiijinaya kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in sarkaalkaasi xabsiga loo taxaabay in Imaaraadka Carabtu ay ka muujiyeen farxad aad u weyn maadaama waxa ay doonayeen ay hadda heleen. sidoo kale hadda lama oga garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxa ka dhoofaya waxa ka soo degaya iyadoo ay macquul tahay intaas iyo in ka badan oo lacag ah ay soo gasho gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. safiirka dowladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Axmed Al Cusmaani ayaa sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid aad u wanaagsan maadaama ay doonayeen muddo badan in ay gacanta ku dhigaan ninkaasi dhalinyarada ah ee badbaadiyay qarannimadiisa iyo sidoo kale madax banaanida ummadda Soomaaliyeed lacag lagu dhibaateyn lahaa dalkeenana hor istaagay. saaxiibayaal si gooni ah looma oga halka sida dhabta loo geeyay sarkaalkaasi balse ila kala duwan waxay xaqiijinayaan inay macquul tahay in Imaaraadka Carabta gacanta loo geliyo maadaama ay kiis weyn ay u haystaan ceeb u soo hoyatay Imaaraadkana ay ahayd in gudaha magaalada Muqdisho looga qabto 9.6 milyan oo dollar ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan ummadda Soomaaliyeed. hogaanka cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka loo magacaabay waa Mahad Salaade waxa uu doonayaa in uu beegsado qof walba oo waqtigii madaxweyne Farmaajo ka aragti duwanaa. sidoo kale waxa uu hadda xilalkii ka qaaday saraakiishii dhalinyarada isagoo oo qaarkood ku dhex sii daayay gudaha magaalada Muqdisho iyagoo bilaa hub ah oo sidoo kale bilaa waardiya. waxa uu doonayaa in uu midba maalin uu beegsado isagoo dusha u saarin doona dadyow kale ama aan bal soo hadal qaadi doonin adilka loo geysanayo dhalinyaradaasi ka tirsanayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa rag hubaysan ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. faahfaahinna dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgallo qorsheysan oo xalay ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliisku ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. howlgalkan ayaa waxaa si gaar ah looga fuliyay 3 degmo oo kala ah Kaaraan, Yaaqshiid iyo Hiliwaa sida ay shaaciyeen saraakiisha laamaha ammaanka. taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Banaadir Cali Dhuux Cabdi Mahadalle oo la hadlay wariyaasha ayaa ka warbixiyay howlgalka waxaana sheegay in ujeedku uu ahaa ka hortagida falalka lidiga ku amniga kooxaha burcadda iyo ciyaal weerarada. waxa aan galnay howlgal aan ka sameynay degmooyinka Yaaqshiid, Kaaraan oo lagu xaqiijinayo amniga guud. howlgalkan ka socday Muqdisho waxaa looga hortagayaa kooxaha nabadiidka burcadda iyo dhalinyarada weerarada. waxa aan ka soo bilownay saldhigga Kaaraan ilaa saldhigga Hiliwaa waxaanu tagnay ilaa aan ka gaarnay saldhigga Yaaqshiid. howlgalkaasi sida loogu talagalay ayuu u dhacay waana sii socon doonaa ayuu yiri taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Banaadir Cali Dhuux Cabdi Mahadalle. sidoo kale taliyaha ayaa xuseyn kooxa dhalinyaro ah oo mid ka mid ah ay tahay haweeney ay gacanta ku soo dhigeen kuwaas oo haatan baaris dheeraad ah lagu wado. shacabka ayaa sidoo kale ugu baaqeen in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago falka dhaawacaya nabadgelyada iyo kooxaha ku howlan. mudooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhacay falal amni darro kuwaas oo ay saameyn weyn ku yeeshay nolosha dadka shacabka. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah gudoomiye Jeyta ayaa ka hadlay dilalka dhacay beledweyne afarin hanjabaad ahna diray. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa si kulul uga hadlay dilalkii qorshaysnaa ee dhawaan magaalada beledweyne loogu geysanayay mas'uuliyiin askari odayaal dhaqan. gudoomiyaha oo maanta dib ugu laabtay magaalada beledweyne kadib muddo ku sugnaa Muqdisho ayaa sheegay in magaalada beledweyne ay ku soo bateen dilalka taasina haysan aqbali doonin haddii ay yihiin maamulka. gudoomiye Cali Jeyte Cusmaan oo si kulul uga hadlayay dilalka ayaa sheegay in meernaba aysan aqbalin in tacsi ay taalo magaalada beledweyne isla markaana ka maamul ahaan ay ka jawaabi doonaan. hadalkan ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa daba socda dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada beledweyne. sidoo kalena laamaha amniga magaalada ayaa sameeyay howlgallo kala duwan. waa hagaag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub
tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad channelka subscribe inoo saadhaan laakiin aan ugu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle